السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يالسود وهذا فيديو لايك سارة سي صاحب وناكسن وقارو صاحبada kaloon ugu cusubna waxaa ka rajaynaa janalkan subscribe inay dhahaan maamulka horyaalka Premier League ayaa shaaciyay ama ayaa cadeeyay saddexdan kulan in postponed laga dhigay oo ugu weeyaan kulankii Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Chelsea oo ka dhici lahaa Stamford Bridge dad ayaa waxay leeyihiin Chelsea ayaa dan ugu jirta dadna waxay leeyihiin Liverpool ayaa dan ugu jirta labada koox cidi dan ugu jirta adaa laga rabaa reer Liverpool waxay leeyihiin macalinkeena maanta wuxuu ku dhawaaqay shirkii jiraa'id Champions League ka hor in ninkii ahaa Robertson uu dhaawacan yahay oo Naby Keita dhaawacan yahay oo Captain Henderson dhaawacan yahay oo waxaan ku Mohamed Salah form fiican ku jirin haddana kulankii Chelsea sii dheelihiin wuu noo baaqday saas ay noogu fiican tahay taageerayaasha Liverpool ayaa qaba halka taageerayaasha Chelsea ay leeyihiin kulanka inoo baaqda dana noogu jiro macalinka Chelsea lama qabsanin kulankiisa ugu horeeyay in la garaaco Stamford Bridge joogo Liverpool ay u maanayso in inta lagu garaaco marabno saxaafada Ingiriiska way war badan tahay kulanka ugu horeeyay waa inaa badisaa wixii taageeriin barakshirka wuxuu ka dagay Chelsea taageerayaasha Chelsea sitay anagu barakshirka naga dagay taageerayaasha Liverpool waxay taagiin maahane anaga buuq ku jirno anigu naga dagay adika idin kala qaybto kama tagin inagu soo saadaalsan kulanka labaad waxa waa kulankii Manchester United Old Trafford ay ku soo dhaweey lahayd Leeds United maxaa asagana see loo diiday macnaa kulankaas London ka dhacay magaalo kale oo ka dhacay Manchester waxa loo diiday Manchester United waa koox weyn haddana waa garoonka taageerayaal badan 200,000 oo dad soo galay marka booliska xakameyn lahaa ma joogo duugtii kuma qanyihiin xataa kulamada waxa loo baajiyaa lagu leeyahay TV-yadii mar hore lacagaha shubo sanadka hore shubay xil ciyaareedka aan ku jirno waa la shubay in TV-yada lacagooda way shubtaan mogtahay xataa waxay taagan yihiin duugta aan tabinayna si lacagaad badan aan u helno kulankaas isna saas loo joojiyay maadaama garoonka taageerayaal badan ay soo galayaan boolisna aan loo helin kulanka kale oo saddexaadna waxa waaye dhamaantiin socotiinba Crystal Palace iyo Brighton Hove Albion asna wuxuu ka dhici lahaa London oo ka dhici lahaa London isbuucan jam waay helaysta kulan London ay marka saddexdaas kulan ayaa postponed la lahay oo aan la dheeleynin halkaas ugu gudbaya tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpoolna war farxad aanan gelinayna ka soo yeeray shirkiisii jiraa'id kulanka Champions League ee leeyanan Ajax Amsterdam waxa uu sheegay in uu Robertson dhaawac yahay aan la heli doorin inta bishaan inta ka dhiman lama helayo Robertson waxay ila tahay in bedelkiisa uu joogo in idan tabinay diri jara reer Liverpool wax kale ma dhihi karo dhaawac doo mid soo kaco mid kale hadduu mid soo kabsado mid kale hadduu mid soo kabsado mid kale marka ishak yarkii Tsimikas ma aha mas Elliot qad ka dhaxawaay Tsimikas ayaa jooga marka waxaan leenahay reer Liverpool dhaawacyada inaad ka soo kabataan Mohamed Salah gabay ka tahay 6 kulan oo Premier League oo saftaal kun oo dheelay hadeertaana Ajax oo 4 gool ee Champions ku soo badisay 3 gool ee ku soo badisay aad habeen dambe la dheelaysaan xaalku ma sahlana reer Liverpool cariirigaas ay ku jiraan halkaas ugu gudbeena saaxiibayaal waxaan oo soo qabataa kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Bayern Munich waa ogtiin habeen dambe ay balsan yihiin wareega guruubyada waxa ayna ku sigan yihiin Allianz Arena ninkii Roberto Lewandowski ahaa caawa waxa uu dhex taagan yahay garoonkiisii xilli ciyaareedka ama kooxda hore ka tirsanaa Bayern Munich reer Barcelona si u faanooyin hada arki lahaydeen baraha bulshada waa yaab lahaydeen in la dheelooyina oo maleysa ni sheeg adiga kooxaha horyaalka oo la liiga markino kadis iyo waxaan ku dhahay in la dheelooyin camal oo maleysa san wuxuu waa Bayern waxay rabtay sameyn kartaa Sadio Mane kulanka hore uu nastay halka Robert Lewandowski isaga naftirkiisa u nastay Xavi Hernandez shirkiisii jiraa'id wuxuu ku sheegay in ay diyaar u yihiin kulankan wax walba shar iyo qeyr diyaar u taagan yihiin ninkii Muller ahaana oo ku jira asaga Barcelona doo arko waa iska qoslaya waa arki doonaa waxa la yiri cimrigaaga hore galay ku tusay habeen dambe marka kulamo badan oo waaliya fiirsantan harta aniga kulanka Barcelona fiirsana adiga kulanka ay fiirsanaysa kulankaas ku heystaa aniga kulankaas maane kulan kala mara waa dhigi kartaa kulanka Liverpool iyo nimankii ahaa ishaq Liverpool iyo nimankii ahaa Ajaxna kulankaas waa asagana kulan dab iyo holac waa asagana waa daawo kartaa aniga kulanka aan bilaawanayo aan dhameysanayo waa kulanka Liverpool iyo Bayern kulankaas meel ugu socdo malan bilaaw ilaa maadina ina fiirsada diyaar u ahay aad uma haysatii saaxiibiya ilaa gabagabada muuqaalka daan la soo gaarteen intaas ay idinka daba geynaa intaas wargeysada caawa aad u shidan ama wararka ay qorayaan wixii jiro inaa idinka soo daba keenaa inaa idinka daba geeyaan jeclahay saaxiibo maalin walba halkaan waxaan ku leeyahay si fiican ii dhiirigeliyo
oo idho hadafkaaga waa gaadaysaa haniyo jabin maalin walba soo dadaal video soo dhig dabcan aniga midda koowaad fadhiistoon waxaa ahay qof marwe ah mid labaad gurigan ka shaqeeyaa shaqaan waa shaqeeyaa saasoo ay tahay janaalkana waxbaa soo dhigaa aniga naftirkeyga asxaabe dadaalkeyga ma yaro oo mar walba inaan soo dadaala jeclahay waxaana aaminsanahay adigka maahane qof kaloo dad wax gaarsiin kara ma jiro because qof walbo Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadlo oo heer gaaray ama haduu YouTube leeyahay haduu YouTube la ahaynba dee waa adinka saas aaminsana because dadka u share garay fiidiyoda waa adinka dadka like wax saara dadka wixii ra'yiga haduu qaldan yahay hadii saxan yahay dadka wax soo sheego ama wax walba soo kala waxay adinka waa aaminsanahay marka qofka hoos u dhigtiin hoos u dhigan yahay qofka sare u qaadiina sare u qaadan yahay marka waxa idin ka rajeynaa walaashayna in aad halka ay qalbadeeda ay jeceshahay inaad gaarsiisaan oo adinkana dad fiican ah ogahay oo mar walba ay dhiirigelisaan oo la community-diin waa akhrista aad u mahadsantiin saaxiibayaal haddana ciyaarahaas wixii ku dhamaan kara qaybta community no grab Liverpool xil ciyaareedkan maxaa u rajeynaysaa Liverpool xil ciyaareedkan haddii dib ay ka soo kabato wax badan way qabsan kartaa mideeda kale saaxiibayaal hal mid rabaa inaan idin sheego weliga ayaa laha jadwal degan Horyal Premier League aad amiyuu ahaanin jadwalka markuu degan yahay markii wax ay ka qaldamaan aday dhib kugu tahay kulamada hadhow la dheeli doono because adoo caawa kale champion dheeshay habeen dambe waxa lagu dhahaa hadana horyaalka kulanka ku baaqday dheelaysa hadana kulanka dheelaysa marka waxa lagu FA Cup-ka dheelay championka dheelay horyaalka dheelay xidigiya ka dhaawacmi karo marka waxa soo dhawaataa qoorta la gali kartaa ma fiicno marnaba kulankaaga inuu ka baaqdo ina iska dheeshida kuuroon hadda Liverpool waxa u baaqatay Wolves Man City la dheelay habeen dambe haduu Ilaahay idmo mideeda kaleeto waxaa jiraba hadda kooxda Liverpool oo kaleeto leen abkeeda koowaad ma ahane leen ab labaad oo plan B oo khatar ah ama xul ah daafac haduu noqdo hadeertaan xitay daafac Van iyo Matip iyo Van bis Gomes waa aragtan kaas difaac ma ahanbo dhibic xitaa difaac Gomes ma soo gal because dhibaatada ugu weyn ee hore soo gaartay kooxda kubadda cagta Liverpool Napoli asaa koob iyo labo mar oo maana ku taabto mar inta kubadda dhac laga siisto gadaashiisa laga soo wareego hadda Manchester City waa u jeedaan waxay haysataa Ake Stones Diaz Akanji Manchester United waxay haystaa Lindelof Harry Maguire meel ku darsan kara Harry Maguire meel ku dar Faraan qalaaga marka Manchester asaas Liverpool markuu waxaa moodaa in oo xidig lagu bedeli karin oo joogan xagga daafac markii loo rotation badan xataa macalinka ma sameey karo line up koowaad maahane line up kale labaad xul ee kooxda kubadda cagta Liverpool ku arkin marka taasna waxa keeni karaa isleeyahay maadaama Liverpool koox lacag la galiyay ee kooxaha way kaliya Manchester United lacag way dhiibtaa suuqa Man City iska badaaba laakiin Liverpool xogaa suuqa markii la dhaho lacagta badan waa looga fiicay adika buu ogteen xataa ciyaartooyda mushaar ahaanta la siinayo aad ugu fiicna Liverpool marka saaxiibayaal intaasna waa idinka daba geeyay aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh